salaadiinta beesha habar jeclo oo bulshadu ay u dooratay masiirka beelaha beesha habar jeclo kaalintii laga filayay badankoodu way gabeen iska daa inay gabeen xataa uma dhowa ama kama muuqato bulshada koofiyadaha u xidhay salaadiinta ka dhigtay maslaxadoodii kama dhex muuqato salaadiintu waxay bulshada la qaateen ama go'aamiyeen ama ku dhawaaqeen dagaal iyo inay naftooda difaacaan difaac mindi ku taagmaa arrintaa way dayaceen bulshada dhiiggeedina wuu socdaa bulshadaydu way dhiig baxda dhaliisha ugu weyn waxaan saarayaa salaadiinta oo dayacay kaalintii ama dagaalkii ay ku dhawaaqeen inama 20 jir ah ayaa jooga dagaalkii ku jira suldaankiina dacaamkuu fadhiistay hurdheel buu ka furtay Hargeysa arrintaasi nama deeqdo salaadiintu inay dayacayaan bulshada anigoo habar jecla dhammaanteed ka hadlaaya dayacu wuu idiin wada muuqda suldaankiina dacaamkuu fadhiistay ama hurdheel bay ka furteen Hargeysa qaar ka mid anigu waxaan diyaarahay inaan hogaamiyo ciidan bulshada waan isu xilqaamay waanan hogaaminayaa farantana waa tegaya ninkii naf jecel Hargeysa ku raaxaysan lahaayo anigu waxaan diyaarahay inaan hogaamiyo ciidan wixii ka dhiman inaan ka helayo habar jeclana waan hubaa habar jeclo tiknikay u baahan tahay lacagna way haysataa waxaan soo jeedinayaa in shacabku uu isagoo midaysan masiirkiisa iyo aayihiisa ka tashado oo habar jeclo ay go'aan degdega gasho oo dagaalka hanti la geliyo aljazaa'u min jinsi al'amal jawaabta aan bixinayaa waa jawaabta dhulbaanta bixiya nabad haddaa idinka waayo idinka bari maayo weys duulkii habar jeclo aan dhamayn jilibkii reer daay waa tii la isu daadsaday barqadii daanta qararoode dabka qolaba waxay haysatiyo diiradluu hadalye dullaa waa baxshaa dhulbahantii orodkana kama dawoobaane durba faqasti waa tii kacdiyo daba qurjiile xukuumaddii ay ku dhawaaqeen salaadiinta iyo cuqaasha iyo guddida beesha bariga Soomaaliland iyo taageeradii aanu bixinay waajibkeedii waanu gudanay suldaankii nagu matelayayna naguma soo warcelinin annagana xukuumaddu weli waxa ay ku dhawaaqaysaa namay qabancin kaamaanaan filayn sidan cabdiraxmaan kaamaanaan filaynin kumana qanacsanin markaan ugu liidano waanu kaa aamusaynaa waayo xukuumadda annagaa dhisnayo laakiin waxaanu kuu sheegaynaa inaan weli albaabadaadii anigu waxaan ahaa ninkii ugu gabayga badnaa suldaan gabyo habar jeclaay ma jiro ninkii ugu gabayga badnaa ugu hadallada cadcadaa baan ahay weli albaabkaaga nalagama furin madaxweyne arrintaana kaamaanaan mutaysan qodobka saddexaad oo xukuumadda ku saabsan 3 macjar baa ka furaa magaalada Berbera hal macjar baa labadii macjar kale iyo 3 nin oo Ciise Muuse ay awoodooda isugu geeyeen oo ka mid yahay wasiirka xanaanada xoolo oo weliba la sheegayo inuu sheer ku leeyahay macjarada mid ka mid ah anigu ma hubo laakiin sidaasaan maqlay waxaan leeyahay xukuumaddu iyada ka mas'uula dalka iyo dadka war aslan waxay isu wadataa dee dalkan lagu soo halganayo diidnayo iska dhicina nin shacabaanu dooran dee madaxweyneyaal xafiis inaan aad keentay oo wasiiri madaxa iskaga kaayo taagin taana u dulqaadan mayno in macjarka habar jeclana xidhnaado macjarada kale kalena shaqeeyaan taana ma aqbalayno dagaal baanu ka xignaa afkaanu ka dagaalamaynaa gacantana haddii ay gaadho oo dee naloola yimaado oo awood naloo isticmaalo dee niman isdifaaca baanu nahay oo aan cidna u joojin xukuumaddana waxaan leeyahay wasiirka xanaanada xoolaha fiiro gaara qoraaladu noo soo qoray iyo hadalladu nagu yidhi inta midna lama deeqin madaxweyne macjarkaa beeshaydu leedahay isagana dad baa leh agoon baa leh iyaga khilaafkoodu waa walaalo yaan mashruuc laga dhiganin wax aan meesha oolin iyagaa wadale haw shaqeeyo agoonta macjarkeedu ha shaqeeyo taasina waa wargelin ninkaa wasiirkaana waxa aanu haynaa rag
shir jaraa'id qabtay intaanu soo bixin go'aamadiisa xadhigga intaanu gaadhin rag baa noo sii sheegay oo yidhi waa la xidhayaa macjarka xog markii dambe qoraalkiisu soo baxay baanu ogaanay wixii naloo sii sheegaya oo raggii noo sheegayaanu codadkoodii hayno ama miidiyaaba ay ku jiraan inay arrintaasina dhab tahay oo ay arrintu wasiirka iyo dowladda cid kale ay ku garbinaysay in la xidho macjarka kuwa kalena ay furnaado salaadiinta bariga somalilan oo bulshadu ay u dooratay masiirka beelaha beesha habar jeclo oo loo igmaday waa kaalintii laga filayay badankoodu way gabeen iska daa inay gabeen xataa uma dhowa ama kama muuqato bulshada koofiyadaha u xidhay ee salaadiinta ka dhigtay maslaxadoodii kama dhex muuqato tusaale ahaan salaadiintu inkastoo waqti badan ka soo wareegay waxay bulshada la qaateen ama go'aamiyeen ama ku dhawaaqeen dagaal iyo inay naftooda difaacaan difaacu mindi ku taag maaha waxalla wixii uu mutaysanayay ee qofku isku difaaci lahaa ee cirdigiisa iyo sharaftiisa uu ku ilaalin lahaa ayaa laga rabay iyagoo dee bixin maayaane inay bulshada ka soo qaadaan oo ku dhawaaqaan oo iclaamiyaan oo waqti ku lumiyaan arrintaa way dayaceen bulshada dhiiggeediina wuu socdaa bulshadaydu way dhiig baxda dhaliisha ugu weyn waxaan saarayaa salaadiinta oo dayacay kaalintii ama dagaalkii ay ku dhawaaqeen inama 20 jir ah ayaa jooga dagaalkii ku jira suldaankiina dacaamkuu fadhiistay hurdheel buu ka furtay hargeysa arrintaasi nama deeqdo anigu waxaan ahay suldaan ugaas isu magacaabay iskii markuu dayac arkay salaadiintu inay dayacayaan bulshadii weli sandaladaydu waa qabyo ma aha mid aan ku doonayo in aan ku shaqaysto ama bulshadayda aan ku kala qaybiyo anigoo habar jeclaa dhammaanteed ka hadlaaya dayacu wuu idiin wada muuqda suldaankiinina dacaamku fadhiistay ama hurdheel bay ka furteen hargeysa qaar ka midi waxaan soo jeedinayaa bulshada waan isu xilqaamay waanan hogaaminayaa farantana waa tegaya ninkii naf jecele hargeysa ku raaxaysan lahaayo anigu waxaan diyaaruhay inaan hogaamiyo ciidanka wixii ka dhiman inaan ka helayo habar jeclona waan hubaa habar jeclo tiknikay u baahan tahay lacagna way haysataa waxaan soo jeedinayaa in shacabku uu isagoo midaysan masiirkiisa iyo aayihiisa ka tashado oo habar jeclo ay go'aan degdega gasho oo dagaalka hanti la geliyo waa ninka noo bu'aya ee dhulbahanteenna laga hahayaa taariikhda haddaad dub u raacdaan gabay baa jiray dheeg tiriyey nin ciidagalaayo wuxuu ahaa haddii aanan ku fogaan hadalka duulkii habar jeclo aan dhammayn jilibkii reer dahay waa tii la isu daadsaday barqadii daanta qararoode dabka qoleba waxay haysatiyo diiradluu hadalye dullaa waa baxshaa dhulbahantii orodkana kama dawoobaane durba faqasti waa tii kacdiyo daba qurjiile waa ninkan shalay eryanayay maanta inuu eryadaa maaha hadda nabadna way diideen oo horay u diideen maantana ciddii nabadda lala qaadan lahaa ima muuqato suldaankiina nabad buu ku meeraysanayaa aljazaa'u min jinsi alcamal jawaabta aan bixinayaa waa jawaabtay dhulbahanta bixiyeen nabad haddaan idinka waayo idinka baryi maayo way iska kin difaacaya cudud baadaan idinkala hormanaya habar jeclaan waxaan leeyahay garabkayga haysta qodobkaa intaasaa ku dhaafay asalaamu calaykum waraxmat